tanaasulku waa wax wanaagsan laakiin dhaqankeena Soomaaliga ma laha waa compromise waxa weeye qofku markuu tanaasulo waxa loo akhriyaa in laga adkaaday ma aha in laga adkaado qofka hadduu walaalkiis u daayo isna waa loo deenayaa markiis hadduu macnaha markay timaado oo runtii tanaasulka aniga aan sameeyay hadda ay qayb ka tahay sida aniga aan sheegay inuusan shisheeyna soo dhexgelin habeen dhaweydna waa yara taabtay haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo dhibaatooyinka dalkan soo maray intooda badan waxay ka timid tanaasul la'aan maxaa yeelay laba hogaamiye wax isku qabsanaya intay ka heshiin kareen ama compromise ay ka geli kareen nin walba ninka kale wuxuu rabaa inuu xariga ku gooyo markaasna khasab waxa imaanaysa in la soo dhex galo Soomaali runtii way ka daashay in la soo dhex galo ama meelo looga yeero oo loo kala gar qaado wax wanaagsan ma ah muddo dheer ayaan ku soo jirnay hadda waxaan rabnaa marka in aan ka bislaan arrintaas oo aan majuur ka noqonno oo annagu aan raadino dhexdeenna inaan isxalinno oo aan xal helno xalkaasna koow waxa ka ah tanaasul